magaaladani waxay soo martay sanado uur ku taalo mahadhooyin xanuun badan dagaal sokeeye iyo falal amni dari balse hadda waa mid leh waji kaas ka duwan haddii magaalada aad joogto waxaad arki kartaa horumar ballaaran dib u dhis iyo bulsho u carbisan nabadda curdunka ah ee caasimadda ka jirta muuqaaladan ilqabadka leh ee laga qatomiyey magaalada kuna fadhiya jooga dheer ayaad ku hilmaami kartaa muuqreebyadii laga qaaday xilligii burburka caasimadda ku soo dhawow Muqdisho nabad la'aan waa nolol la'aan haddii horumar la arko waa iyada oo nabad ay jirta dib u dhiskan xawliga ku socda waxa sabab u ah iyadoo la dareemayo nabad Muqdisho waxay ka soo qabsanaysaa xaalado adag oo muddo ay ku sugneed oo ay ugu horeeyeen dagaaladii iyo colaadihii sokeeye ee waddanka ka dhacay goobaha ganacsiga ee ka furan magaalada ayaa lagu gaaraa xilli dambe habeenkii taasoo ay sabab u tahay dardarta uu ku socdo ganacsiga waddanka iyo nabadgelyada magaalada laga dareemayo xilligan maadaama lagu soo kordhiyay business cusub oo ay qaybihiisa kala duwan ay ka mid yihiin dukaan moolal iyo maxaa la dhahaa moolal aad u waaweyn oo wax walba laga heli karo sida dukaaman carwooyinka qalabka elektarooniga iyo qaybaha kala duwan sidaa daraaddeed ayaan u imaan halkan inaan ka tukaameysano dharka noocyadiisa kala duwan oo isteeladii ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalo si kasta oo magaalada Muqdisho ay uga dhacayaan falal amni dari haddana taasi waxaa barbar socda horumar ay magaaladu ku talaabsanayso maalinta ka dambaysa waxaa hirgelaya dhismayaal joog sare oo la mid ah kuwa dunida horumartay ka qotoma alxamdulilah nin oo ganacsiga dhinaciisa marka ka hadalno eeriyadeena anaga alxamdulilah ilaa habeenkii waa shaqaysanaa sometimes marka qaarkood 4 saac waa gaarnaa 5 saac waa gaarnaa runtii dadkan way soconayaan waxyaalo kala duwan oo fara badan way gadanayaan ku karo telefoon ay nooc computer wax walba waa gadanayaan alxamdulilah ganacsiga xilliga habeenkii aad u nagu fiican bal qiyaas magaalo xag ganacsi dardartaas ku socota halka ay gaari karto 10 sano kadib haddii dhalinyaradeedu dhexdu u xirtaan in waddanka ay ka shaqaystaan dawladuna laba jibaarto dadaalka ay ugu jirto kobcinta dhaqaalaha dalka منصر محمد عبدي Universal TV Muqdisho